وزير محمود عاش عبدي هدي أنا هذا الكيجان قلت له هرت مقعي وافد فيصل الجامعة runtii su-aashaan ku weydiinaya waxa weeye iminka waxaad ka tidhi madasha ma haysano aqoonsi caalamiya se mudane wasiir waxaa la sheegaa ama qolada koonfurta ay sheegtay in dekadda magaalada berbera iyo saldhigaba laga saxeexay madaxweynihii hore mudane xasan sheekh maxamuud oo isaga laftigiisa qadar lacageed intaanu meesha ka tegin la sii siiyey xukuumaddan madaxweyne farmaajona ay ku hungowday madasha iyada kulley waa joogtay markhaatina waad ka ahayd xoogaan la waatay bulshada Soomaaliland cid heshiiska saxeexday ee lahayd go'aanka kama dambaysta bulshada u cadde heshiiskii maalgashiga dekadda ballaarinta dekadda berbera yaa saxeexay waa su'aal jawaabteedoo kooban heshiiska labadaa heshiisba waxaa saxeexday dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland ma jiro heshiisyadeena waxay Soomaaliya ka saxeexday waxa cadeynaya oo Soomaaliya waa kuwa qarqarka heshiisyadeena haysta way ka hadleen madaxda hore oo dhami iyagoo le maanu saxiixin maanu ogin markhaatiga kale inuu doonayna waa maxay maxaa naga qulquleysaan wuxuu al-fadlu bima shahida al-a'daa waxa markhaati kugu filan cadowgaagu wuxuu kaaga marakaco taasaan iyada ayaan kaga baxaya oo madaxweynaha mustaqbalka jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan ku salaamayaa maxamuud xaashi cabdi wasiirkii hore wasiir su-aashaan ku weydiinaya waxay tahay dowladda Itoobiya waxaad sheegtay inaad ku maslaxdeen in bayska la bixiyo hase ahaatee warar xogaale waxay sheegayaan in Itoobiya ay halkaasi ciidamadeeda ku tababaranayaan bayska imaaraadka la siiyey halkaana ciidamada Itoobiya iyo maraakiibtooda ay iman doonaan arrimahaasi waxa ka jira ayaan doonaynaa inaad bulshada u cadayso aad iyo aad u mahadsantahay ninkii dhalinyarada halkaa iga weydiiyey ciidamada Itoobiya saldhigga berbera ma isticmaali karayaan haddii imaaraadka iminka ay saaxiib noqdeen jawaabteedu waa maya waxa keliya oo isticmaali kara waddanka imaaraadka carabta oo keliya xataa ma isticmaali karaan heshiiskeenu si cad ugu qeexan yahay wadamada ay xulufada yihiin xataa ma isticmaali karaan waayo wada hadal dheeraad bay keenaysaa dimaaraadku damco in Sacuudigu la isticmaalo renegotiation baa la sameynaya dib baa loo wada hadlaya way cid qurayna wax kala kareysana ma isticmaali karaan saaxiibtinimada iyo heshiisyadu waa kala nooc Itoobiya saaxiib baynu nahay hase yeeshee waxna wada leena waxna waynu kala leena tani waa waxaynu inagu gaarka u lahayn waxaynu gaarka u lahayn waxaan weydiinayaa maxamuud xaashi labadii dowladood kala dambeeyay Muuse iyo Siilayo heshiiskan DP World wasiir iyo madaxweyneyaalba way ka hadleen haddana si kala duwan ayuu mid kastaaba madal kala duwan ugu hadlay ma idinkaan isu warhaynin oo midkiinba mar ay saxaafadu qabato ama warar jeedinaya si gaar ah uga hadlaya mise heshiiskan ma waxba ka jirin oo dadkan Soomaaliland baa doonaysa inay ku guubidaan oo aad been ugu sheegtaan taasaan doonayaa in cadayso su-aasha arrinta ku saabsan loo jeedayo soo celiyey madaxweynuhu saldhigga hadalkuu ka yimi wasiirkuna hadalkuu ka yimi diwaanooda intii aanay macakafta loo ku daray inay iskaga filan waxaan leeyahay saldhig waa ku celinaya saldhigga magaalada berbera imaaraadka siiyey jamhuuriyadda Soomaaliland way karaysaa وكل وقضية الله كذا وضعه وين قادم ولا قادم صدق مشاريع حرمين أو مدرسة وفلوتها هي الموجودين وعن سنة هذا الكاس سمع الكورية هذا الكلمة هو يقول الصحوة الغير مصري ولا ولد وامكري صحوة هذا علماء الفقراء المسلمين أراد وقت يمرك سوريا ويشرقيا ويسبق سريع توزيع ما يبغى حقه ويسير عنه كذي هي صارينا كذا مدير وزير سير كي بشي لبي تبناد سنة كي لبدي كلية طبيعية طبعا كي
dowladda federaalka Soomaaliya waxay si toos ah ula wareegtay hawadii Soomaaliya iyo Somaliland ka dhaxaysay isla 18 December sanadkii hore maareeyaha hay'adda duulimaadka Somaliland mudane Rodal wuxuu sheegay markii ay Soomaaliya hawada la wareegaysay inaanay kala tashan haba yaraatee Somaliland isla markaana iyagu diidan yihiin soddonkii sano ugu dambeysay hawada Soomaaliya burburkii hay'adda baa maamuleysay ikawa la yiraahdo oo fadhigeedu Nairobi yahay adigu markii wasiirka ahayd duulista hawada 2015 wada hadaladii Soomaaliya Somaliland ka dhacay Ankara lixdii qodob lagu heshiiyay hordhac ahaa waxa kow ka ahaa in hawada Soomaaliya Somaliland bayskeedu marka hore noqdo in Hargeysa laga maamulo maxay ku dhacday in imika laga maamulo Soomaaliya dawladda Somaliland ay uga hadlayeen arrinta hawadu waa mawduuc aad u adag oo aynu ku kala aragti duwanahay Soomaaliya mudanayaal iyo marweyn qarannimaaba ina dhex taala يا قرنيمو هرج يرمى هو قرنيمو ينسكوهين وحق أينو لنا دل مدح بنام بينو هين لحنكي وينو يسكو بيري وينو كلاكون وحيليه نجمد باتي لحنكي لبضلو مدح بنانو يسكو بيري بينو كوب إيه لحنكي سراكيشي ريرو قوي قاعدة السومال لان كسوتشي دي انقلاب ايديجي وحي موتشينيسي إلى رالك واهين ميدوغي صدق لبي اللحن كوني سجال بقول يلبي إحنا كأفتدي دستورك وين ديدني تذكر هيروقوي مركا إنك الشمال لا بينه حل قاعد تذكر هيروقوي قبل إنه رجلي وين ديدني أفر ديكا يندح وين سديك طلال كوبيا سجاشن كي بلشة غير شمالي لان بيله هدي قبل الذي إذا كان الدون ما حد قامت كذا سياسي جود برعي سقوطي وحينو قوسنين وقرني مدي إني لا صون قلنا كم مقنيد مدش أمشي شان دستور بينو سماي سنة أفتي شعب جينا بالواقع بقول كبار سجاشن يتضبط أيام عديين إنه قاري سكاجن ليه سوماليا إنتاس أصلا بيشرد بهشيسين ودي عمر بميل كشرين والدستور كشة وحي بيس بيسني شارت الرضا يهشيسينا مد قرا قريب كمان ينسى وحبا ورسكتها وحكله ورمجع عيل كويشي لمجع ما أنت هيستان معه جمهورية الصومالية أيونكم يدون ما أنت نروح ليه دولة الفدرال الصومالية معمول قبل يديله استركت كابكم تشوفوا عشان ما ينسقوها هنا وحاسين الدحية الرما ينسقوها هنا هي هودو كمت لكن هودو ما هي سنترينه وحينوها ينشري قرمة الميدوبي قرمة الميدوبي حل يجيب بطرس قالي أيها وحل قامي article resolution la 1954 ayaa waxa lagu go'aamiyay in hawada dalkii burburay Soomaaliya qaramada midoobay dhaxahayo xarunteedana Nairobi laga dhigo ekaaye iyo UNDP ay wada maamulaan muddo laga wada hadlayay in la soo wareejo waanu isku mari weyn heshiiskii Istanbul wuxuu ahaa si aan siyaasi ahayn mashruuc farsamayn laga dhigo oo loo maamulo xaruntiisuna Somaliland noqoto Hargeysa noqoto way ka baxeen waanu isku qabanay waanu isku mari weyn waadayna gamay xoog roonaane hadaynu isdilayna gamay xoog roonaadeen tii waa laynoo kala hiiliyo hay'adihii gacanta ku hayay qaramada midoobay baa u dhiibay qaybtii hordhac ahayd arrimaha adag ee wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland ku jiri doona ayay noqon doonaan intaan qarannimada la gaadhin arrimaha guddiga u ah ee laga wada hadli doono ayay ka mid tahay waa godob aynu haysano beesha caalam qaramada midoobay Somaliland haddii godob laga galo oo loo abaal gudi waayo nabadda iyo dimuqraadiyaddii horumarkay samaysay oo tallaabooyinka kuwa ka mid ah la qaado Somaliland waxay haysataa kaadhadh adag oo ay dhigi karto nabadda iyo wanaagga iyo horumarka ay ku naaloonayso ee ay dunida doonaysay dhinaca wanaagsan oo la shaqayso waxaa dhalinyaradeeda iyo da'yarteedu ku qasbanaanayaan inay noqdo in la radicalize gareeyo argagixisada ay ku biiraan dee aynu noqono dhaqankii shaarka yar aynu qaadano North Korea geeska Afrika ba noqono marka arrimahaasi waa arrimaha inuu hor yaala ma xukuumadda Somaliland ma bixin xukuumadda Axmed Siinaay iyo Tamuuse Biixi midna heshiiska kuma jirto waa layna xoogayday waan arrimaha inuu baxanayo soo dhacso أبغى قصة وزير واحد دود هذه اللي كنت هرب مرر بدنا الله شاقي إن سلقة ميلتري
aan lacag laga qaadayn sanadla ah laakiin mashaariic horumareed lagu qabanayo mashruucii horeeyay inuu noqonayo wadada isku xidhaysa berbera iyo wajaale mashruuca berbera corridor waxaa loo yiqiin inuu yahay waddo madax bannaan oo wadadeena kale ka duwan ayaan dhawad waxaa la dhex dhigay inuu noqonayo wadadeena oo la kabkabayo la yaro ballaarinayo negotiationka ku jirteen ma waxaa kula heshiiseen oo dekeda military baseka inoo siiseen in wadadeenu laynoo ballaariyo mise waddo madax bannaan be waayahay garyaqangulada aad buu mahadsan yahay waa su-aal aada u fiican dowladda imaaraadka carabta saldhiggii military aynu siinay waxa ugu miisaanka weyn ugu qiimaha badan ee ummad ahaan aynu macaashnay ee siisanay waa waddada hadday dekedaasi noqoto bilaa waddo 442 milyan db way gelinaysaa faa'iido male waa ceelaad qoday oo dar looga soo arooraba iyo waddaba aan lahayn sidaasaanu arkayni db la waddada de inooma dhisay dekedaynu ku heshiiyey marka waxa weeye dowladda imaaraadka waxaanu ku heshiinay in waddo cusub laynoo sameeyo markii farsamadii la galay ee shaqadii la gudagalay waxaa soo baxday in muxuu ahaa waddada hadda la samayn doonaana waxaan u xaqiijinayaa bulshada somalilan inay waddo cusub tahay berbera corridor waddada hadda la dhisi doonaa sidii wasiirka gaadiidka cirka iyo muxuu ahaayey uu sheegay cabdilaahi abubakar waa waddo cusub maaha kabka waa saxay waa waddo cusub laakiin waxaa loo arkay maslaxad in waddada la qaado qaybteeda sare oo dhan laga faa'iidaysto muxuu ahaayey foundationkii hore waddadu halkay maraysay waayo meelo fara badan deegaanka u dhexeeya berbera iyo muxuu ahaayey hargeysa badankiisu waa buurale iyo dooxyo waxaa la arkay xilligii de ingiriiskana waa la sameeyey xilliyadii dalkii soomaaliyana waa la sameeyey meelo badan oo loo duwo waddo cusub laga sameeya inaanay jiri karin baa la isku qancay farsamo yaqaanadii somalilan iyo imaaraadku waxay isku raaceen in waddo cusub oo meel kale laga sameeya ay dhib badnaanayso sidaa darteed waddadan waddo cusub laga dhigo oo la qaado oo meelaha ay ka daacday dhammaanteedna dib loo dhiso xataa foundationkeeda gawar waa waddo cusub bay noqonaysaa aan saxo aan naaxiyo madaalka cigaar international airports wasiirkii duulistaan ahaa wadhabaha maanta laga sameeye laga duulaa waa dhaba cusub haddana wuxuu ku qotomaa foundationkii hore ee ingiriisku inoo sameeyey 1958 foundationkii waxaa la qaaday leeyaradii hore oo dhan leeyarkii koowaad iyo labaad iyo saddexaad foundationkii baa loo tegay dhagixii baa dib loo habeeyey waar waddada meeshay maraysaa laga faa'iideynayaa foundationkana wixii ka nool waa laga faa'iideynayaa markaa waa waddo cusub sidaasaanu ku heshiinay waana sidii wasiirku sheegay